السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا walaalayaa war kaliya walaalkiin maxamed xasan oo idin kusoo dhawaada Somali academic ama SomAka. insha Allah taala casharadii Java inoo socday casharka waxaan noogu soo dhameeyay data type iyo sida loo magaceeyo data variable, how to give a value and how to name the value. insha Allah taala casharka maanta aan qaadanayno waxa weeyaan wixii aan baranay si loo name gareeyo iyo data type key iyo variable waxa la dhahay wixii sidee in practical ahaan allo isticmaalaa. Okay, now we're going to create a new class. Right click kursi ama abuuro Java project ama new class as you like. This one name it with brag. Okay, when you start the class name brag, now we're going to add the main method public static void main string argument. Okay, hadda waxaan rabnaa inaan integer ama value variable kii aan soo baranay ama data type-yadii aan soo baranay ina mid kamid ah aan value siiyo, aan value aan dhaho computer save garay kadibna iso printer garay. tusaale ahaan hadda int number equals 1 2 3 okay 1 2 3 marka waxaan rabaa hadda intigaas inaan dhaho iso printer garay computerkiga tus. Okay, how we learn casharada hore usoo baranay si loo printer garay system dot out dot println then number. So easy, right? Okay, then how do you learn? Save there kadibna run there. Okay, meesha waxaa kaaga soo baxay console-ka 1 2 3. Okay, let's add string, maybe more interesting. String names equal Muhammad Hassan and then close it. Okay, now I want to print also this Muhammad Hassan under the 1 2 3. Okay, how to do it? System dot out dot println kadibna names. Save there, run there, boom, 1 2 3 Muhammad Hassan. Now we're going to add hadda waxaan ku daraynaa double numbers number 1 see aan u kala saarno number iyo number kaar kale equals 1.2 closing. Now you need to bring out system dot out dot println kadibna waxaa dhahdaa number underline 1 kadibna save there, run there, boom. saddexda waa kuwana 1 2 3 Muhammad Hassan 1.2. This is how to print out the value. Waa baran doonaa, it will become more interesting, lakin hadda go with me. Okay, so this is the integer and you print. This is the integer, this is a data type, this is the value you give, the name and the value you give, and this is how to print out. And this you pass this number magacaan waa magacii aad integerka aad u bixisay. inta waxaad gelinaysid waa wixii aad integerka aad usoo bixisay. Same way string magac u bixi kadibna value c kadibna soo printer garay system dot out dot println oo pass magacii aad u bixisay names. Same way double number 1 aan u bixinay value hiisan waa 1.2 se usoo printer ka 1.2 waa inaa dhahaa 1 number 1 waa inaa geliyaa meesha si oo computerka usoo daro. wax walbo intaas qowsinka u dhaxayso aad geliso macnaheedu waxa weeyaan banaanka keen. Okay, little bit waxaan ka dhigaynaa little bit interesting si un kala ogaadaa which one is double, which one is int, which one is string. meeshan waxa yaalo waxaan leeyahay okay waxaan leeyahay
sorry, kani waa inti. Then you use plus. We will learn waxa la yiraahdo plus. Okay, haddana inta imaaw waxaan rabaa inaan ka dhigo haddana string aan soo printer gareeyo oo aan dhaho kaninan kani waa string ku xidh plus isticmaal double imaaw. Okay, dhibicda fur kani waa double kusoo xidh plus. Okay, meeshaan space waa sii kartaa si hadhow markuu kusoo saaro xooga space uu ku siiyo. Save dheh, run dheh. Okay, here you see kani waa int 1 2 3, kani waa string Muhammad Hassan, kanina waa double 1.2. To make more interesting waxaa ku dartaa labada dhibic. Just play around with the code. Okay, you see kani waa int 1 2 3, kani waa string Muhammad Hassan, kanina waa double 1.2. So like you play around with the code. Kudar waxa ku dari kardho isku day inaad fahanto cashirka saas uma adka. So please try practice. The more you practice, the more you will get. So isku day system.out waxaa rabtaa meeshaan ku tarkada plus waxaa la yiraahdaa waxa weeyaan concatenations. waan baran doonaa cashirada soo socda insha Allah taala. marka insha Allah practice-keena maanta intaas oo ahaa. isku dayna code wax ka bedesho. meeshaan numberka bedel, number kale ku qor. meeshaan magaca bedel, magaca kale ku qor. meeshaan numberka bedel, number kale ku qor. isdib dhaafi. isku day adoona cashirka fiirno inaad samayso. يعني try more insha Allah taala. you will be able to get insha Allah taala. we still in the beginning. weli cashirada bilaabay noo yihiin. cashirada way soo socdaan, way tira badan yihiin insha Allah taala. daawateen aad ugu mahadsantihiin. please subscribe my channel YouTube iyo booqo ma website-kayga somaka.blogspot.com. aad ugu mahadsan daawatay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.